ninkan aad arkaysid sawirkiisa waa Nuux Taani oo aflagaadeynaya garaad ka mid ah garaadada beesha dhulbahante oo runtii xurmad darri ay ka muuqata ninkaas la yiraahdo Nuux Taani bal ila dhageyso sida uu garaadka u aflagaadeynayo iyo ninkaasi xurmad darrida ka muuqata iyo yani sida uu u dhaqmayo odaygaas askariga ahi bal dhageyso. waxaan ku leeyahay garaadow hore aad dadku SNMT dadka badan ka laayay wadanka oo ciida ka badan laayo lagu haya Somaliland ka adaa ka baxsaday oo tagay xamar waligaana fidmo waxaan kama talin maantana waxaad u dibiga dhacleedahay ee doonaysa waan garanaya anigu waxaan ku leeyahay wax runtii ninkaasi waa xad gudbay caqdad badan baa ka muuqata Nuux Taani hadaladiisa waxaa ka mid ah garaadka inuu ku eedeynayo inuu garaadku SNM dad badan ka laayay garaadku weligii askarina ma noqon dadna ma laynin xilligaas sideetamaadkiina dhalinyarooba ahaa waxa uu Nuux Taani ka wada hadalka in beesha dhulbahante SNM ay dad badan ka laysay marka ninka ciidan haysta taliye ciidana Nuux Taani la Somaliland oo dhan baan matalayaa haddana caqdada noocaas qaba ficilada uu sameynaya sool ka sameynaya kala shaale iyo boohodle uu ka sameeyay inay argudasho yihiin ayaa ku cad oo ku muuqanaysa raggan aad arkaysid iyagana sawirradooda aragtidee Nuux Taani uu ka mid yahay waa rag dhamaantood isku beel ah SNM na ah ninkan aad arkaysid Saleebaan Gaal Nuux Taani Muuse Biixi Maxamed Kaahin iyo Cali Barre dhamaantood waa rag beesha isaaq ka kooban oo SNM oo argudasho iyo dhibaato ku haya deegaamadan Sool iyo Sanaag iyo Cayn haddaad aragto Muuse Biixi iyo Nuux Taani waa isku beel waa isaaq waa beesha habara wal waa Sacad Muuse Maxamed Kaahin isagu waa habar jeclo waa Maxamed Abukar waa reer Yuusuf sida oo kale Saleebaan Gaal waa habar jeclo waa Maxamed Abukar waa Solomadow ninkan kale la yiraahdo Cali Barrena waa habar jeclo waa Muuse Abukar raggaasi waa rag isku beel ah gobolka Sool la dhibaato badan ka geystay boohodle iyo kala shaale waxay ka geysteen aad ogeyd ciidamada markii Jirif oo isagu laftiisuba